ku-xigeenka xogeeyaha guud ahna murashax u taagan doorashada golaha wakiilada Somaliland mudane Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax ayaa galabta magaalada Hargeysa kaga qayb galay xaflad lagu soo xidhay tartan ciyaareed ka socday garoonka Maxamuud Axmed Cali ee magaalada Hargeysa sidoo kalena lagu furayay tartan kale oo loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. munaasabadan oo ka dhacday garoonka Maxamuud Axmed Cali ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha dalladda Soonyo Cabdicasiis Maxamed Farfarle taliye Saxardiid qaar ka mid ah ciyaartoydii cuslaatay iyo taageerayaal tiro badan oo daawanayay ciyaartii kaba dambaysta ahayd oo maanta dhacday. tartankan dhammaaday iyo kan kale ee la furayba waxaa maalgeliyey murashax Cabdinaasir Qodax waxaana qabtay oo fuliyey kooxda Juventus. ugu horeyn waxaa xafladaasi ka hadlay Siciid Cali Muuse oo ka mid ahaa ciyaartoydii caanka ahayd ee ka ciyaari jiray garoomada kubadda ee caasimadda. ilaahay baa mahad iska leh runtii waxaa farxada garoonkii Maxamuud Axmed Cali oo muddo badan ka bacdi waxa weeyaan ay dib u soo noqotay qeyradii iyo kalgacaylkii kubadda loo hayay. runtii taasi waxay muujinaysaa inay degmadeenu isbeddel u samaysay fara badan oo waxa weeyaan lagu farxi karo lagu diirsan karo. marka waxaan odhan lahaa kooxda Juventus oo iyaduna runtii koobkan qiimaha badan soo abaabushay boqolkiiba boqol aad bay ugu mahadsan yihiin. weliba Juventus oo garoonkan runtii in badan gacanta ku haysay wax badanna wax weeye ku soo kordhisay hadday amniga noqoto hadday noqoto kubaddo tartano joogtaa la qabanayo oo labadii wiig ama saddexdii wiigba mar la dhamaynayo waxa weeye wax laga qeeday weeye. marka aad bay u mahadsan yihiin. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay taliye Saxardiid iyo gudoomiyaha dalladda Soonyo Cabdicasiis Maxamed Farfarle. waxa aan aad ugu dardaaraya in ay nabadgelyada ilaaliyaan oo ay si fiican u ilaaliyaan ciyaarahana ay u ciyaaraan. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ciyaartan kama dambaysta ah ee lagu soo gabagabeynayo tartanka muddada dheer soo socday iyo kooxda runtii garoonka gacanta ku haysa ee sida fiican uga shaqaysa. dhammaan daawadayaashana waxaan u sheegayaa in mar kasta oo ay amniga wanaajistaan in cid kasta oo doonaysa inay dhallinyarta wax u qabataana ay ku soo dhiiranayso oo ay u imanayso oo ay runtii caawinayso. marka amniga inaad ilaashataan, inaad balwadaha iska daysaan, inaad kubadda iyo maaragtay cibaadada iyo alla kacabsiga iyo waxbarashada inaad xoogga saartaan baan idinku dhiirigelinaynaa. shalay ka maalin annagaa ku ciyaaraynay garoonkan, annaga ahayn kuwii ku ciyaaraynay. maantana dee waanu ka baxnayoo waxa weeye jiilalkii dambaa ku ciyaaraya. marka in saa laysku runtii loo wada feejignaado oo loo wada dadaalo weeye. aad baan idiin salaamayaa insha allahu tacaala. saaxiibka Cabdinaasirna waxaan u rajaynayaa guul doorashada soo socota in ilaahay guul ku gaadhsiiyo oo guul ka gaadho. waa nin dhallinyara runtii oo firfircoon oo muddo dheer isaga laftiisu runtii dhallinyarada ku soo dhex jiray oo runtii aan islaya siyaasadana cid uga waaya aragsani ma jirto. guul baan u rajaynaya insha allahu tacaala. murashax Cabdinaasir Qodax oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday in uu qaban doono koobka bisha Ramadaan ee garoonka Maxamuud Axmed Cali. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta halkan ku soo gabagabayno ciyaartii finalka ahayd oo aad u qurux badan oo ay ka soo ciyaareen ciyaar wanaagsan soo bandhigeen labada kooxood ee runtii akhlaaqdu ka muuqato ciyaartayadana soo bandhigay. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. ciyaartaa fiicana soo bandhigteena waan idinku hambalyeynayaa. walaalayaal ciyaaruhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagaga gaabsado balwadaha iyo qabyaaladda. waxay kaloo ciyaaruhu ka qayb qaataan isdhexgalka bulshada iyo sidii ay magac iyo muuqaalba ciyaartooygu ugu qayb ugu yeelan lahaayeen dalkooda iyo kolba naadiga ay matelayaan ayay runtii ay ciyaaruhu ka qayb qaataan. ciyaaraha reer Somaliland maraaxil badan bay soo mareen, maantana marxalad wanaagsan bay marayaan oo u baahan in halkaa hore looga sii wado. insha allah biidnillaahi alkariim waxaan u ballan qaadayaa dhallinyarta ku ciyaaraysa iskuulka Maxamuud Axmed Cali in ay insha allahu aan ka kafaalad qaadi doono
tartanka muxuu ahaye rabadaanta oo ka qayb qaadan doonaan 32 kooxood oo halkan Britoole insha Allah ay ka furmi doona haddii la yiraahdo dhalinyartana waxaan ku boorinayaa inay akhlaaqdooda ilaashadaan amni ku ciyaaraan ciidamada biliiska la shaqeeyaan iyo maamulka garoonkaba si fiican oo la shaqeeyaan waxaan kaloo ballan qaadayaa maanta wada ogtihiin shacbiga reer Soomaaliland boqolkiiba 8 waa dhalinyaro haddii aan golaha wakiilada ku guuleystaa haddii la yiraahdo waxaan dhiiri gelin doonaa oo kor u qaadi doonaa dhalinyarta runtii ciyaaraya iyo ciyaartooyga ayaan dhiiri gelin doonaa miisaaniyada dalkeena maanta wada ogtihiino boqolkiiba 5 bay ugu tala gashay wasaaradda ciyaaruhu inay ku maamulo ay muxuu ahay dhareed reer Soomaaliland waxaan ka shaqeyn doonaa sidii 105 taay oo aan ka feynahayn dhalinyarta loo kordhin lahaa oo ugu yaraan boqolkiiba 20 haddii la yiraahdo aynu gaarsiin lahayn si ay noogu soo baxaan dhalinyaro xirfad leh oo dalkooda magac iyo muuqaal u soo jiida xirfadooda waayagnimo ciyaareedna runtii kor u sii qaada waxaan kaloo aan ka shaqeyn doonaa sidaan u xurun lahayn xeerar khuseeya ciyaaraha iyo dhalinyarta guud ahaanba reer Soomaaliland meel kasta joogaan oo ay xaq u yeeshaan in ay iyo xuquuqba sidii ay dalkooda manfac iyo maalba uga heli lahaayeen xirfadooda ciyaareedna ay kor uga dhig lahaayeen koobkan dhammaaday ayaa waxaa ku tartamayay 24 kooxood oo ka soo kala jeeda dhammaan degmooyinka caasimadda ciyaarta finalka ah ee maanta la ciyaaray ayaa waxaa fowda isku daray labada kooxood ee Winners iyo Anshax waxaana guushu raacday oo ku guuleystay koobka kooxda Anshax oo ku badisay rikooryaal la dhigay gabagabadii ciyaarta kadib markii ciyaartaasi ku soo idlaatay barbardhac gool iyo gool ah waxaa sidoo kale shahaadooyin la guddoonsiiyey gudoomiyaha dalladda Soonya Cabdicasiis Maxamed Farfarle qaar ka mid ah ciyaartooydii hore ee cuslaatay taliyaha saldhigga mudane Saxardiid iyo murashax Cabdinaasir Qodax sidoo kale waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ciyaartooydii ku guuleystay gool dhalinta iyo ciyaar wanaagga iyadoo ugu dambeyntiina koobka la guddoonsiiyey kabtanka kooxdii ku guuleysatay koobkaasi ee Anshax dhinaca kale waxaa halkaasi koob lagu guddoonsiiyey koox kale oo ku guuleysatay tartankii heerka afraad ee D kaas oo shalay ku soo gabagaboobay garoonka Maxamuud Axmed Cali kuna guuleysteen kooxda loo yaqaano Young Boys ugu dambeyn waxaa garoonka Maxamuud Axmed Cali galabta ku dabaal degay kooxda Anshax ee ku guuleystay koobkii ka socday garoonka Maxamuud Axmed Cali ee uu maalgeliyey murashax Cabdinaasir Qodax محمد مرق ورسمه Ariel TV Hargeysa